kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada channelka maalmaha fadlan subscribe saar oo kambalelka rukumo haddii ay tahay markii kugu horeysay si ay kuu soo gaaraan muuqaalada halkan soo gelino kusoo dhawaada warbixin ku saabsan jannada iyo wixii loo diyaariyay muuminiinta bismillaahir rahmaanir rahiim Allah subhanahu wa ta'ala jannada wuxuu ka dhigay guri ay leeyihiin dadka karaamada iyo sharafta kula Allah agtiis marka ay dunida joogeen kuwaas oo nolosha ku dhamaystay in Allah ay raali geliyaan lana yimaadaan wax kasta oo amray kana haraan wax kasta oo Ilaahay ka reebay Allah abaalmarin ayuu uga dhigay waana waxa la isku abaalmariyo waxa ugu wanaagsan haddii dadka ay ku fakar lahaayeen had iyo jeer wixii isweydiin lahaayeen waxa uu Allah u diyaarshay dadka muuminiinta ah qof waliba waxa uu ku mashquuli lahaa sidii uu amalkiisa iyo acmaashiisaba u hagaajin lahaa inta uu dunida joogo si uu nolosha dambe u helo meel wanaagsan oo ku waaro abidkiis jannadu waxa ay leedahay waxyaalo badan oo la yaab leh oo badan sida uu Allah iyo rasuulkiisa nooga warameen nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri dadka ahlu jannada ah markay jannada galaan way garanayaan gurigii loo diyaariyay maalin kale nabiga waxa uu yiri Ilaahayga nafteeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay qofka ahlu jannada ahi marka uu jannada galo gurigi uu galin lahaa wuu kaga aqoon badan yahay sida uu haatan u yaqaan gurigiisa adduunka aayad quraan ah Allah wuxuu yiri waxa la gelinayaa janno ay garanayaan oo loo qurxiyay culimada waxay ku macnaayeen sida ay dadku maalinta jimcaha ay ugu dareeraan masaajidka ay u aadaan guryahooda ayuu qof walba gurigiisa u aadayaa maalinta qiyaamaha dhismaha jannadu waxa ka dhisan bulukeeti dahab ah iyo bulukeeti qalin ah oo loo yaqaan silver afka qalaad labada bulukeeti dhexdooda waxa ah miski waana meesha loogu talagalay booska dhoobada qururuxa jannada wuxuu ka samaysan yahay luul nooc kamid ah dhagaxa qaaliga ah ciideeduna waa sacfaraan haddaba jannada dhismahaas leh waxa iska leh dadka iska ilaalishay xumaanta markii ay adduunka joogeen waayo nabigu waxa uu diiday in qofku uu wax ku cuno kuna cabo weel ka samaysan dahab iyo silver bedelkeeda si ay ugu helaan jannada dhexdeeda cidda lagu abaalmarinayo waxa maalin u timid nabiga qof dumar ah waxay sheegtay in ay ku riyootay riyo aad iyo aad u yaab badan nabigu wuxuu ogolaaday in ay ka waranto oo ay hadasho waxayna tiri waxaan ku riyooday aniga oo magaalada la iga saaray kadibna la igelinayo janno waxaan maqlay cod aad u weyn sidii wax samada ka soo dhacay oo kala ah codkii awgiis ayaa jannadii la furantay dhinacii aan jugta ka maqlay ayaan fiirshay oo waxaan arkay hebel iyo hebel ilaa ay tirisay 12 nin ragga ay tirisay waxay kamid ahaayeen rag uu nabigu u diray duulaan iyadoo hadalkiisii wada ayay tiri nimankaas waxay qabeen dhar ay ka muuqato dacdaro waxa loo tilmaamay in ay galaan wabiga magaciisa loo yaqaan bayda wabiga ayaa la quusiyay waxa laga soo baxshay ayagoo aad wajigooda moodo sidii dayax joogo 14aad waxa loo keenay saxan dahab ah oo ay ku jiraan timir nooca loo yaqaan busur waxbay ka cuneen anigana waan la cunay ayay tiri halka markii ay marayso ayay rayidii dhamaatay markii ay haweeneydii ka dhaqaaqday ayaa waxa nabiga u yimid nin nabiga u bishaareynaya kana waramaya duulaankii la diray wuxuuna yiri ninkii hebel waa la diray ilaa uu ninkii tiriyay oo 12 nin oo haweeneydu ay tirisay nabiga isla markiiba waxa uu haweeneydii u yeeray wuxuuna ku yiri riyadii aad aniga ii sheegtay dadka ugu celi waxa iswaafaqay riyadii iyo qabarkii laga keenay ciidankii duulaanka ahaa xadiiskan waxa wariyay Ahmed waana shardiga Muslim labiska jannada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri sabarkii ay adduunka sabreen ayaa waxa lagu abaalmarinay janno iyo xariir wuxuu kaloo Allah yiri dharkoodu waa xariir markii ragga muslimiinta ahi ay ka tageen in adduunka ku xirtaan xariir iyo in ay dahab xirtaan sida faraanti dahab ah
ama silsilado ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhar uga dhigay jannada dhexdeeda xariir ragga iyo dumarkaba. sidoo kale ragga iyo dumarka waxay xiranayaan oo ay ku labisanayaan dahabka iyo luulka sida uu Allah yiri waxa loo labisayaa oo lagu qurxinayaa jijimo dahab iyo luul ah. nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri hadii nin kamid ah ahlu jannaha oo soo bixi lahaa oo ay muuqaal lahaayeen jijimihiisa lugaha iyo gacmaha dahabka ugu jira waxa qarsoomi lahaa iftiinka qoraxda sida qoraxdu ay u qariso iftiinka xidigaha. daawadayaal intan hanoo joogto qormadan ku saabsan jannada iyo waxa loo diyaariyay muslimiinta. qaybta kale waxa daawo doontiin maalinta khamiista insha Allah waxaan uga hadli doonaa cuntada iyo cabitaanka jannada oo Allah ugu diyaariyay dadka muuminiinta ah. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan sii share gareey oo asxaabtaada la wadaag. mahadsanidin.